darteed lugta ay wiilkan intay waxaan ku dhahay marxuumka ah oo meydka ay meydka un bay ka adagyihiin annagoo hurudna iyo annagoo maxaan ku dhahay dhimanay bas naga adag inta kale iskama ka celin kartaan mana soo hawaysan kartaan dad masaakiin oo dulman ininka ah wallahi billahi because annagoo hurudna inaad noo soo daadataan iyo dantiina waxay noqotay annagoo dhimanay inaad nagu istaagtaan wax kala bedeli kartaan ba malahan kalmaad reyaal oo kaca iyagu 9 kalafay la wareegaan inuu kabta wiilka madaxa ay ka saarayaan la wareega kuwa Mareykanka jooga oo kaca maanta hadaydan kicin birina kicimaysaan maanta wiilkaas ay haysataa biri ana ay qabsan kartaa biri wiil qof kale oo gabooyaa bay qabsan kartaa inna la wana raajicuun waa falfool xun oo argagaxle waxaan loo dul qaadan karin maalin walba in la dhoo reer hebel ba sidan bay yeeleen oo la isku kaayo tuurtuuro annaga ragayga noo keenay rag malihin ragayga waxaan ku baaqayaa inay dagaalka galaan inay maxaan ku dhahaayay ilmaada reyaal rag baa la inaga dhigay labada xiniyood ama iska soo wareejiya ama maxaan ku dhahaayay maatadiina iyo raggiina maalin walba la inaga hordilayo haday ka dhiidhiya ama xiniyaha nagu soo wareejiyeen cala aabiin ku yaale ama xiniyaha nagu soo wareejiya ama ka kaca meesha maalin walba mid madaxa agta laga saar meelaha baa noo qoray maalin walba madaxa agta laga saaro war kaca wareer kaca dhiig ma lihidina ragga iyago aan dhiig lahayn meeshaas so anigu burcaan ku dhashay leeyahay burcaan anigu 7 jir aan ka qaxay laascaanad ba 13 jir ku gaaray soo wax fantama waana qaana wana ogtahay anaga Saciid kul hadaan nahay deegaan waxaan la leenahay dhul bahante walaalo dadku ma fiir isaaq iyo dhul bahanta waxay ku kala duwan yihiin isaaq waxooga way afran yihiin waxoogaana sida dhul bahantaha kala ma dhul bahantuhu ma yaqaanaan wala qabyaalad oo ma dhibaanka ninka dhul bahantaha ninka ma dhibaanka waa isku mid laakiin se isaaq aanu kuma lihi cunsurinimada way yaqaanaan laakiin ma aha kulligood ma wada aha in xun iyo fiican ba way leeyihiin ma fahantay laakiin se dhul bahanta aniguna ku soo dhex karo dhul bahanta walaalo ma ba yaqaan cunsurinimo wuxuu kaga duwan yahay isaaq waxa la gaalka dilaa gadkiisana si uu kaga dadka kale oo dhan ay kaga duwan yihiin dhul bahanta ma dhibaan iyo qofka ma dhibaanka ay qofka dhul bahanta wuxuu yaqaanaan inuu mid yahay laakiin se dadkan isaaq waxooga ku wada jaahiliinta cunsurinimo ku jirta marka kii wanaagsana iyo ka cunsurinimada ku jirto yaan lagu qaldin walaalo intaas way gabadhii kale ma dhibaan hadda xanaaqdana waan ka raali gelinay adiguna hadda igu dhibsatay walaal waan ka raali gelinay qaaliyay walaal waa sidaas aniga imika waxaan saaxiib la ahay gabadh saaqa oo ilaa yaranteeda ilaa hadda inta isla waaweynaanay Ciise Muuse waxaan ku dhahay Leylay waxay iga jeceshay ma laha inaan yar bay xanuustay Leylay dhakhtar aan 6 bilood kula jiray gurigeyga iyada ii haysay waa gabadh saaqa ma dhibaan gurigeyga muu haynin carruurteedana ii muu haynin cidina ii ma joogto Sacuudiga marka walaalo isaaq oo dhan isku wada mid maaha waxaan leeyahay aniga waxaan diiday inta qof loo hiilinaya oo isaga commentiga lagu caynayo oo loo soo korayo caynayo inay naguna caynan diidaya waa akhlaaq xumo isaga iyo loo hiilinaya hadaynu cayno intaas un baan diiday walaalo hadda ugu dhibsatay karaan lahow gabadhi ma dhibaan waan ka raali gelinaya ee waa halminta walaalo ma ku haysaa ma guriga ku tirtirtaa aniga taa waxay galay baa isteer inaad laba eray dantaada ma kala hadlaa dadkani waa isku mid anigu isaaqtaaba xalay nagu tiri isaaqaya dadka kale Maxamed garxatiska ku soo coobaad risax taadi baanu qaadano kugu ixtiraam wali misanaha nasiiq qof walaalay ma garatay qolkaan hada istoo furtid iyo hada ka degtay ani walaashay baa fiiri walaalo ani walaashay baa tahay oo ugu qaaliya soo waxa taantay maaha walaalo waxa ku lahaa dambiga kulligood galmay wada gelintay garxajis bayna inuga galay dambiga garxajis aynu ana xitaa aan waxa ku leeyahay qofka garxajiska ah ee qof walba raayay buu leeyahay ani qofka garxajiska ay barbar taagan ma jeclina ku xadgudbo يعني waa tabacadeed waa sida anaana yarba Soomaaliya ka imiday ma jecel qofka hadda lagu xadgudbin ku xadgudbo aan dambiga idanka aan ka aamo ma jecel inagana adigana Soomaaliya kaga dambayso seextaadu waxa weyn isaaq uma doonayso ku keen ka gurtid mid fiican mid san marka walaal qaaliyay anigu walaal tabacadeed asaas hadda ugu dhibsatay walaal loo raali ka howleelay qaaliyay walaal walaal daawada ka maradaada meegna qaadanaynin waxna nagu soo kordhinaynin isaaq noo kala amaanaysid anaga baayan dadka meedkayaga madaxa agta ma kala imika Leila wala la fiiri dhigaso qof ku hiilinaya adigi oo sida lagu caynay lagu imika gabadh bay noo soo kortay sidii lagu caynay baa loo caynay qorshada baata inaad dadka usay ku soco inaad qolkayga waa maqlaysaa qolkayga isku soo qabsanin meelaha kale ka difaacisa waxa tiraahdaa dadkana walaalka adiga kula dhashay ninkana kulama dhalano waa nin tumaala sax walaalkaaga kula dhashay maanta cagta madaxa laga saar lahaa
تقولي كو ترتريسا هذا شيء عيالك كو هيسات بلا بلاي إن باتهاي ما أنتوا كلنا عد أمان ما جرتوا عد أمان هذا جرت أنا أقول البنات أمان وهيا يوم حنقول دارود ساقنا نقول حاجة قلبها بس كير يودت كان كلا سومال لأن تسكو شيء غني هذا بكرة يقان حالنا هذيك يجري ما حنقول هاي إسكت هاي أصلا غير كحدا ما أنت هذيك يبقى عاونا سيكلا ولا مركنا هذا ردنا وحشود ما كنت دقيت ما توقف سنة هذا في عسولو حالتك ورا الحمد لله قال هذا هلا بقول هذا ما نايسا قول بدين ما هيشيني نعرف بعد الشيء طيب عيرتنا كلا بقول هذا ناس اسكو soo doyacayaan misana kaaga sii daranta marwaanka meesha soo qabsanayay baa difaacaya waa dad iyagu Soomaaliland bay degaan way baqayaan moogtaa anigu Puntland baan degaa wajada xooyiga ma bedeli kartaa guriga way baqayaan ما شاق بيوه لنا حارانت بس بقالة راعة والبقالة يود بيعي يود دش فين ناقة دلوينك يعني ما كحنك دلوينك ويساق أو وحنك ناقة يستها أو وحنك حارانت بس تتبادل وعلي تتبادل قرح بس كدش يا بعدك عاود كوسو كريه مركي كوسو كريه maxaa ii soo qaban wada caawd in soo qaban kulahay nacalad baa iska dhashay iyagii meel ka soo jeedeen abla firac meena lahayn ya laakiin garxaaj iska xiro qolada ay saaq waxa la yiri reerka dambiga ka galay wiilkaas oo madaxa cagta ninka ka saaray waa garxaaj smidkaan ina marka isaga ka xiro qaali dumaray naa garxaaj saaq waa isku mid nacalad baa dhashay meel ka soo jeedeen ana Soomaaliland ma kala aha intee guday لا سعودو والله فيتها ما شاء الله سعودو عايشة ورسالات صبح بلا دبي لو دغايغا والله لا نكر الوعد أصلا تلك أو قيس الله مقدرة سكتة